deaban fadhama ta ayaamaha Jabuuti takimi eedaysana Fuad Cali waxa uu ku talaabsay faldambiyeed kala duwan kuwaasoo ka soo horjeeda sharciga dalka u yaala sidaas darteed qaar ka mid ah baraha bulsho waxaa looga hadlay arrinka eedaysana Fuad Cali siyaabo khaldan oo ka fog xaqiiqda balse halkan waxaan ka sheegayaa ayuu yiri wasiirka gaashaandhigu in haliyada ciidanka qalabka sida ay ka mid yihiin Adjutant Chef Maxamed Sugi iyo sidoo kale Sergeant Chef Khadir kuwaas oo dagaal la galay ciidanka Eritrea kadibna ka soo baxay xabsi ku yaala dalkaasi iyagoo uu bad qaba waana kuwan dhinac kale wasiirka gaashaandhigu waxa uu ka hadlay eedaysana Fuad Cali inuu isku dayay in uu la baxo diyaarad military si uu gaadho dalkaasi Eritrea arrinkaasina uma suura gelin ayuu yiri wasiirku kadib waxa uu gaadhay dalka Ethiopia waxaana faldambiyeedada kala duwan ee uu galay eedaysanuhu gacanta ku haya waaxda garsoorka wasaaradda gaashaandhigu waxa ay maxkamadda u gudbisay dacwad ka dhan ah eedaysana Fuad Cali waxaan halkan aan ka xaqiijin buu yiri wasiirka gaashaandhigu in Fuad uu galay dambiye kala duwan oo isaga sharciga dalka u yaala laga mari doono waa sida hadalka uu dhigay wasiirka gaashaandhigu توعدنا نمهاكا يا بمريا جيبوتي عسكرا معهم بيتيا dadweynaha reer Jabuuti waa in ay ka fogaadaan wararka been abuurka ee lagu xardhayo baraha beenta ee bulshadu ay iskugu timaad arrinka eedaysana Fuad Cali waxa uu yahay mid garsoor madax bannaan gacanta uu ku hayo balse dal kale oo qaaradda Afrika arrimaha noocaas waxa ay ku dhamaadaan xaalad daran gees kale dadka fidnada ka shaqeeya waxa ay warar been abuura ku sheegayaan in ciidamada qalabka sidoo qaybo kamid ah ay ciidanka ka baxeen oo taageero ay u fidiyeen eedaysana Fuad Cali balse arrinkaasi waa ahayn mid sax waxa uu yahay mid xaqiiqda ka fog sida hadalka uu dhigay wasiirka gaashaandhigu ciidamada qalabka sidoo waxa ay yihiin kuwo heegan u ah hirgelinta siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle ee ku aadan adkeynta ammaanka iyo xasiloonida dalka iyo sidoo kale dalalka degmada geeska Afrika sidaasi ciidamada qalabka sidoo waxa ay ku muujiyeen munaasabadii xuska sanad guuraha 43aad ee ciidanka qalabka sida ee loo dabaaldegay shalay gees kale askari Mustafa Aadan Shire waxa uu ku sheegay baraha bulshada in taageero uu fidiyay eedaysana Fuad balse askarigaasi waxa uu yahay mid deserteer ah oo horay uga baxsaday ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Jabuuti isagoo oo dalka Faransiiska tababar loogu diray ayaa waxa halkaasi uu noqday mid ku hadhay oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Jabuuti si sharci darro ah uga baxsaday wasaaradda gaashaandhigu waxay halkan uga soo jeedinaysaa dadweynaha oo ay u sheegaysaa in ayna dhag jalaq u siin wararka been abuurka ah ee lagu soo qorayo baraha bulshada waxaana ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Jabuuti ka go'an difaaca qaranka Jabuuti iyadoo loo hoggaansan yahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ammaanka iyo xasiloonida iyo horowdhiga ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaan dadweynaha u soo jeedin talo suuban oo ah in laga fogaado wararka been abuurka